محمد الدستوري هذا حاج علي قدوميها جامعة البدر مبارك إبراهيم آر وزير كان أوقافته خليل الشيخ عبد الله وزير كان وزير الدولة وأحبر الشرع محمد حاج آدم حنا حسب كفر يو وداني كل ميانا كانت تسمعت كتير وفريا مدحنا نور الدين بفريا مهد توجيه صوص على أرض الروم سيوكو بدل سوماليلا مدحنا ذلك صوت تعبشيل هيدا كله أرض الروم تيجي صوف فريا بروح البدن إياه والدين تا وحنا نقول سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدوالدكم مهدنا قياو intaan jaamacad tagayay waa ka yara asluub wanaagsantiin oo aamusantiin oo tashuushki inkastoo hablaha ilmaas aad soo eegayaan haddana waa ka fiicantiin ninkan odayga hogaaminayay ama naariyeetarka inuu ahaa daadihinay wuxuu yidhi cid suugaanta igu wehelisa ma hayo hadalkiisina wuxuu ka dhammaan waayay hadalku waa boqol iyo boqol halkaa dhaafi maayo runtii gabay buu tiriyay Chinle gabayga Chinle uu tiriyay waayo in yar waxa u baahantina qosashaa siba u soo yara fadhideen waa yara basharuurteen marka waanu kaftamaynaa waa maalin farxadeed waa kaftamaynaa gabay jaa buu tiriyay ma dhowto jiiftu inoo tirinaya jaa jiiftada jaada ah sidoo u dhigay barigan yaraan ardayda idin la midka ahaa waxa loo oran jiray soo sameeyo riwaayad kids keena iskuuladu way tartami jireen marka iskuulada inta la isu keeno ama jaamacada may jireen gobolkii loo oran jiray waqooyi galbeed ardayda isu iman jirtay halkii tiyaatarka loo oran jiray ayaan isugu iman jirnay debate baa la sameeyay waxa la kids marka su'aalaan isweydiin jirnay su'aalaha had iyo jeer hal xidhaalayaal bay u badnaayeen waxa lagu oranayaa inta soo taagto 4 iyo 3 isku dar haddana marka ardayga wadiyo ku 4 iyo 3 isku dar waxa laga yaabaa inuu waa 7 waa 6 waa 5 4 iyo 3 marka la isku dar waa imisa oranay ardaygaas waa 8 8 waxa weeye waa Soomaali lagu hadlayo 4 iyo 3 isku dar adigu yiin marka waa 8 cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya waxyaabaha isweydiin jirnay qaar baa oranayay hawo iyo daruurayo waxba u dhaxeeya laakiin waa qoraal bay ka hadlayaan waa cir iyo dhul iyo u dhaxaysa marka waxaan kula talinayaa maamulayaasha iskuulada iyo jaamacadaha inay wax fara badan bay ardaydu kala faa'iideeyaan in ay u furaan kalisidii noocaas ah la isu keeno jaamacadaha jaamacadda bedel tagto burco jaamacadda burco tagto la isweydaarto boorama la tago waa talaan soo jeedinayo waxaan u socday Chinle aad buu jiijiiday laakiin waxaan xasuustay barigan yaraa ayaa tix Chinle baan tiri tixdii baan idin marnay aniguna sixdaasi waxaan ku sii xasuustay dhalinyaro rag iyo dumar hablayo inamo had iyo jeer dawaagayaan waa la iseegaa waa la sheekaystaa inaanu aad isugu wanaagsanayn baa iga yara baydhay inaanu saaxiibna u baydhay runtii marka bahalka dareen baa kaa keena runtii markaa uu qaado waxaan ku yidhi anigoo ku jecel oo jiirkaygii aatoo ruux kaleba inuu jiro uu jooga mooday baad jara ii maleegtood jarkayga boodood saaxiibkay jeclaatee jaahilnimadu waa cadow waa jacaylka wax u dhima ruuxnaba wadnaha jara qalbi laba u jeel qaba u janjeera gees kale indhahana jaleecada bar xaggayga soo jiro niyadii ku jecel baa kuu jiidnaxayso adaa jaray wanaago jirku ima damqanaya hadda joog ha moodine jaw baan ku leeyahay way dheeray runtii marka ardayda leeyahay waxaan idin lahaa hablaha iyo nimadaas ay seegay qaar badan oo wax ka dhaxeeyaan bay jirtaa waa unuga jacaylka laftiisa halkan uu ka bilaabmaa waa farxad waa idin la wadaagayna farxadda aan idin la wadaagayno
maaha macallinkoo keliya maaha guula idinku gaadheen maaha shaar iyo surwaal ay iska soo xidhateen iyo qalin iyo buugaa soo qaadateen oo wax barateen guusha waa laydinla qaybsadaa waa laydinla leeyahay kow waalidkaa idinla leh idin soo abaabidiyey idin soo tarbiyadiyey tacliintu intanuun maaha waxay ka soo bilaabantaa ish iyo hooy ha cunin lama cuno ilaa gurguuradkaaga ay soo bilaabantaa hooyo ayaa ku soo tarbiyadaysa aabbaa kuu tacabgala process dheer bay soo martaa inanta ilaa akhlaaqdeeda ninbaa maalin la yidhi waa maxay raggu markay interviewada bixinayaan sidaa baahsan ugu fadhiistaan habluhuna si asturan ugu fadhiistaan habluhu hooyada tarbiyadeeda weeye oynu kaga duwanay ummadaha kale hooyo dhiidhiibso ceeb halkaasay ka soo bilaabmaysaa raggana kadaalik tarbiyadda iyo aqoontaasuu la imanayaa qofku ayuu dugsigii hoose la imanayaa kii dhexena la imanayaa guusha waxaa la wadaagaa waalidka guusha gaadheen waalidkiin ha iloobina inta ilaahay nasiib u siiyey ay maanta ay nolol wadaagayaan macallinka wax idiin dhigana ha iloobina wixii laydin dhigayna ha laladaadinina rag fara badan baa kollay sallaanka ka dhici wax waa barateen laakiin waxaa laga yaabaa fiilkii aad wax ku baratay inaanad helin shaqadiisi laakiin samir baa laydinka baahan yahay annagu ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan kollay vision bay somaliland leedahay 2030 waxaa ogtiin ardayda dhalinyarada somaliland waxaanu leenahay mustaqbal wanaagsan 72% maanta somaliland waa dhalinyaro ka yar 35 waa wadamada ugu mustaqbalka fiican baynu noqonaynaa annagoo halkaa ka duulayna ka xukuumad ahaan waxaa dhowaan ogeydeen hoolkan iyo goobtan aanu ku launch garaynay ama aanu ku daafurnay qorshaha horumarinta guud ee qaranka buug 340 page ka kooban buuggaas wuxuu ka kooban yahay pillars iyo sectors 9 sector uu ka kooban yahay iyo cross cutting kaba qaybaha ugu weyn waxaanu siinay dhalinyarada youth employment program waxaanu siinay waxa la yiraahdo create job centers waxa idinku jira wax fara badan buugga la socda meel walba uu yaala waanu baahinay qaybaha ugu muhiimsan dhalinyaradan xoog saarnay in shaqo loo abuuro in meelo job centers la sameeyo sida caalamka aad timaadaan oo tiraadaan shaqadaas aad TV-gaaga geyso job center-kaasina oo cidii baahi jirto ama xukuumad ama private ha noqoto uu yiraahdo laba inaan master aan hayaa saasaan hayaa inaan degree noocaas aan hayaa waynu bilaabi doonaa waxa laga yaabaa meel imika ku hagaagtaan aanay jirin laakiin waa qorshaha horumarinta guud ee qaranka ee 5 sanadood soo socda waa hadda codka ku ridaan oo kulmiye siisaan insha Allah biidnillah waa qorshaha horumarinta guud ee qaranka wax fara badan bay ku jiraan aragti fara badan aad baa u guuxdeen kollay buugga cid waloo timaada way ku shaqaynaysaa kulmiyuuna moodina haddii laakiin buuggaasi waxa weeye waa buug heer qarana waa qorshaheennii horumarinta guud ee qaranka caalamka oo dhan baynu ka iibinaynaa runtii rag idinka idinla mida oon dabadda wax ku baran oon halkan uga mahadnaqayo ayaa buuggaa sameeyey oo somalilandara oo dhalinyaro ah oo jaamacadda hargeysa ka baxay ayaa buugga aqoonta intaa laga inay somaliland taalaba maalmooday raggaasaa sameeyey idinka idinka mid ah waa ragga had iyo jeer waxayna lagu xantaa waxaynu nahay very bright dadka reer waqooyiga ama somalilandarkii haddaa bahasha tuujisaanu ka shaqaysaan wax fara badan baa abuuri kartaa ka shaqo waaya buug buu qori karaa article buu diyaarin karaa faa'iido fara badan baa leedin marka hays dhiganina annaguna waxaanu idin diyaarinay insha Allah biidnillah marna jo xumaanaysaan after election wax fara badan baa iska bedeli doona ardayda mashaariic fara badan baa DB wal soo wadaa mashaariic fara badan oo ilaa arday ay dibadda u qaadayso training garinaysa jira waxa jira shaqooyin ay ka abuurayso free zone baa jiri doona dekadiiba sanad walba 7,800 kun oo arday qaadan doonta free zone ka ilaa 20 kun oo qof baa ka shaqayn doona waxa soo socda wax fara badan waxa laga yaabaa inaan shaqaale dibadda u doonano niyadda ha xumaynina insha Allah biidnillah aad iyo aad baan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay